12 nin oo Soomaali ah ayaa min 5 sano oo xabsi lagu xukumay kadib markii ay maxkamad ku daalo dalka Mauritius ku heshay dambi ah in ay burcadbadeednimo sameeyeen. Raggaasi ayaa waxaa sanadkii 2013 badweynta India ka soo qabtay ciidanka caalamiga ah ee ilaalada ka haya badaha Soomaaliya kadib markii ay isku dayeen in ay qabsadaan markab xamuul ah. adduunka soo mara kulli waa dadabisee adduunka soo mara kulli waa dadabisee masiiba ayaa meeshan yaali yaa maari jiraye ayaa joogta maante magaceed intoo lumiso marag ismaqalo qaranimada ku mintida waxaa soo masiiba ayaa meeshan yaali yaa maari jiraye ayaa joogta maante magaceed intoo lumiso marag ismaqalo qaranimada ku mintida magaceed intoo lumiso marag ismaqalo qaranimada ku mintida magaceed intoo lumiso marag ismaqalo qaranimada ku mintida